halkani waa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay ka dhaceen dagaalo xiriir ah in ka badan 20 cisho kuwaas oo dhexmarayay dadka deegaanka iyo ciidamada maamulka Somaliland iyadoo duqeymo ay la beegsadeen ciidamada maamulka Somaliland xaafadaha dadka rayidka goobaha cibaadada iyo waliba xarumaha caafimaadka waxaana duqeymahaasi oo aan la maaldayn ka dhashay khasaare lixaad leh oo soo gaaray dadka shacabka ah barakac iyo waliba burbur hantiyeed. Laascaanood waa maalintii afraad oo dhawaqa xabadda iyo daryankii madaafiicda aan laga maqlayn balse khubarada amniga ayaa sheegaya in dhinacyadu ay ku jiraan diyaar garow dagaal kaasi oo la filan karo waqti kasta inuu ka bilowdo jiidaha ay ciidamadu isku hor fadhiyaan. 15 sano ee la soo dhaafay magaalada Laascaanood dadka wax ku dila aan la heli jirin hadda xaalkeedu waa isbedelay intii laga saaray ciidanka Somaliland waxaana la diiwaan galiyay iyadoo hadda qofkii wax geysta la garanayo lana soo qabanayo dadka deegaanka ayaana isku diyaarinaya xasilinta magaalada Laascaanood. madaxda dhaqanka ee SSC Khaatuma ayaa cadeeyay inaysan iyagu marnaba duulaan ku ahayn deegaana beelo kale leeyihiin balse duulaan lagu yahay iyaga oo ay dhulkooda u madax bannaan yihiin aayihiisana ka tashanayaan. dhinaca kale waxaanu booqanay cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood wuxuuna ka mid yahay goobaha ay saameynta weyn ku yeesheen duqeyntii magaalada ay ka geysteen ciidamada maamulka Somaliland waxaana nooga warbixiyay qaar ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ee xaruntaasi ka howlgala. waa dhawahay walaale kalshaale ku dhawahay idin soo dhawaada runtii waxaan joognaa saaka isbitaalkii guud magaalada Laascaanood haddaan ka warbixiyo isbitaalka muddadii ay xaaladdan taagneyd ama mataqaanaa xasuuqan uu ka jiray gobolka Sool khaasatan magaalada Laascaanood runtii isbitaal ahaan waxa soo gaaray dhaawacyo fara badan baa isbitaalka soo gaaray waa isbitaalkii degmadu lahayd ugu weynaa bukaanada ugu badan loogu shaqeynayay haddana saasay tahay duqeymaha ugu fara badan ay mataqaanaa runtii ku soo dhacayeen duqeymahaas oo runtii saameeyay dhammaan hawshii ka soconaysay isbitaalka tusaale ahaan waxay saameeyeen ambalaasyadii soo qaadayay dhaawacyada qaybta ay burburtay waxay saameeyeen mashiinka oksijiinta waxay saameeyeen qaybtii shaybaarka ama kaydkii dhiigga waxay saameeyeen mataqaanaa solar systemkii isbitaalka marka waad garan kartaa qaybahaasi muhiimadda ay u leeyihiin isbitaal shaqeynayay runtii waxay kaloo saameeyeen in shaqaalihii oo kale tusaale ahaan ay qayb cabsi badan soo food saarto waxyaabaha mataqaanaa ay la wadaagay waxa ka mid ah gabadh ka mid ah shaqaalaha isbitaalka ah oo runtii markii dhowr qori way soo dhaceen mentally ama maskixiyan isbedeshay mataqaanaa depression ku dhuftay oo dharkiiba dhigtayba way jirtaa marka kolleeyda xaaladdu waa saas weeye sidoo kale bukaanada meesha lagu dabiibayay in qaybtood iyagoo la daweeyay haddana dib dhaawac kale uu gaaray shaqaalihii isbitaalka shaqeynayeen qaybo ka mid ah xitaa dhaawacmeen marka iyaduna waxa weeye waa waxyaabaha dee saameynta dagaalka u lahaa ee isbitaal ahaan mataqaanaa si gaara noo saameeyay ama noo soo gaaray. Ibrahim Abdiqaadir Jabaan warbaahinta Kalshaale Laascaanood.